السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي ku xidhan barta YouTube-ka in ayaamaha waa kala maqnayn laakiin maanta muuqaalkan waxaan idinkaga hadli doonaa warbixino aad uga baahnaydeen badankiina wadanka Rwanda inkastoo oo muuqaalo aad u badan ka sameynay laakiin dad badan aanay arkin ama dad badan wali su'aalo ka hayaan oo ay jecel yihiin wali inay wax ka ogaadaan. Haddaba marka laga hadlayo Rwanda waa wadan ka mid ah wadamada ku jira wax la isku raahdo East Africa Community ay Soomaaliya ku jirto, Kenya ku jirto. haddaba wadanku waa wadan halka ku xiga Afrikada dhexdeeda ku yaala. marka haddaba ay noqoto wadanka galisteeda baasabooradu way kala duwan yihiin. haddaad baasaboor Soomaali haysto on arrival kuwa kalena waa sidaas oo kale. haddaad baasaboor kala haysato waa sidaas oo kale. wadanku waa visa on arrival oo macnaheedu visa on arrival ka dad badan baan aad u fahansanayn. marka laga hadlayo visa on arrival waxa weeyaan markaad wadanka gasho eed cagaha dhigto bil kadib ayaa fiisaha aad apply gareyn kartaa. laakiin marka aad airport ka tagto waxa lagugu dhufanaya wax la yiraahdo visa waxa entry oo 30 days entry lagugu dhufanaya. marka airport ka lagaaga dhufanaya taxigaaga qaansa ama cidi ku imanaysa hore u soconaysa. haddaba halkan waxaan doonayaa inaan uga faa'iideeyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee jecel inay Rwanda wax ka bartaan meesha doonaan ha joogaan caasimadda Muqdisho, Garowe, Hargeysa meesha doonaan ha joogaan. ardaygu uu tagi karaa wuxuu ka soo baran karaa laakiin hal shay buu u baahan yahay haddii aanu cid ka garanin wuxuu u baahan yahay qof damiinta oo damiinadiisa qaado letterka admissionka u soo saaro uu ku hagaago oo markuu wadankii tago caawiyo ayuu u baahan yahay. berigii hore wadanku wuxuu ahaa waa la iska geli jiray marka la iska galo daadaa waxaaga hagaajisanay. laakiin inta dambe waxa lagu soo kordhiyay waa inaad haysataa qof muhiima oo qof muhiima maaha waa inaad haysataa qof ku garanayo oo ku damiinad qaata waa inaad haysataa. qofkaasi wuxuu oranayaa qofkan anigu hagaagayaa marka qofkaasi wuxuu ku soo dirayaa lambarkiisa ama fiisiisa wadanka ku jooga ayuu ku soo dirayaa. marka qofkaas waa qofka damaanadaada qaaday. haddaba marka ay noqoto xilliyada ay ardaydu la qoro inteegyo kala duwan bay leeyihiin oo qaar baa inteegyada waxa la qoraa January inteeg May inteeg September saas leeyihiin. waa xilliga inteegu ay jaamacadu furan tahay. marka waa intaas waa inta. haddaba halkan waxaynu ka sii wadi doonaa wixii in ardayda looga baahnaa. ardayda horta waxa looga baahan yahay visa ardayda horta halkan waxaynu ka sii wadi doonaa wixii ardayda looga baahnaa. ardayga Soomaaliga markuu haysto baasaboor Soomaaliga visa waa on arrival asan u sheegay. marka visa markaad wadanka gasho ayuunbaad viisaha apply garanaysaa. haddaba visa intuu kugu soo baxaya visa wuxuu kugu soo baxayaa week buu kugu soo baxayaa markaad wadanka tagteed apply garayso ee processka marto wuxuu kugu soo baxayaa week. waa inaad haysataa baasaboor valid oo baasaboorkaaga waa inaanu 6 bilood wax ka yar inaanu u harsanayn xilligu dhacay si aad visa u apply garayso inuu baasaboorkaagu ahaada baasaboor aanay u harsanayn wax 6 bilood ka yar xilliga dhicida. haddaba markaynu ka hadalno Rwanda safe ama nabad baa meel lagu noolaan kara. Rwanda waa very safe aad bay safe u tahay. marka safe ka laga yimaado malaha wax musuqmaasuqa wax alla wax musuqmaasuqa oo Rwanda ugu imanaysa ma jirto. dadka wadanka jooga ama sida booliska waa dad ku ixtiraamaya. hadaad xitaa aanad wadanka u dhalan waa dad ku ixtiraamaya oo ixtiraam ka mudan dadka kale oo dadka ajaanibta way soo dhaweeyaan ama Soomaali ha ahaado ama qof kale ha ahaado. haddaba waxaan u galnaa haddaba luqadda wadanka lagaga hadlo. luqadaha wadanka lagaga hadlo waxa kamid ah luqadda officialka ah oo la yiraahdo Kenya Rwanda oo wadanka lagaga hadlo waa luqadda iyagu ku hadlaan. luqadda waxa soo raaca English iyo French ayaa soo raaca. marka qofku hadduu English garanayo caadi hadduu French garanayo waa caadi. laakiin luqadooda de wadanka lagaga hadlayo qofkii jooga waa bartaa inkastoo ay tahay luqad Soomaaliga ka adag. Englishku waa common waa waxa wadanka wax lagaga barto. jaamacadu luqadooda kuma baxaan inaan taana cadeeyo ayaan rabaa waxa ku baxaan luqadda Englishka. Frenchna kuma baxaan. Frenchka dadka waaweyn u baa ku hadla oo wadanka Belgium baa yar gumaystay iyo French ayaa u kala dambeeyay taana ma hubo laakiin Frenchka dadka waaweyn baa ku hadla. wadanka luqadahaas lagaga hadlaa. haddaba imika waxaanu u geli doonaa
cost of living-ka. Marka cost of living-ka lagu daro ardayga ama sida wadamada Afrikaanka oo kale, ardayga markuu arday yahay uu student yahay wadanka joogo, ardayga waxa ku filan bishii $300 meelahaas ardayga ku filan. $300 ardayga ku filan waxa ku jira rentigiisa oo inuu guri kiraysto oo guriga uu kiraysanay ama arday baad la kiraysanaysaa ama cid kale aad la kiraysanaysaa, waxa ku jira rentiga ku jira, mealskii baa ku jira oo cuntadii wuxuu ardaygu cunayay, waxa ku jira transportationkii oo meesha waxa la isticmaalaa basas iyo mootooyin baa la isticmaalaa. inta badan basku wuxuu tagaa xaafad laakiin mootadu waxay tagtaa meel yar oo dhow bay tagtaa. marka taas waa transportationka. cost of living waa affordable, waa wax ardaygu ku noolaan karo, qaalisa uma sii aha. cost of living imikana waxaan u soo geli doonaa educationkii, waxbarashadii oo ardayda universitiesku waxa weeye universities adduunka laga aqoonsan yahay oo sharci leh. tuitionka saa u qaali ma aha markuu ardaygu wato baasaboor Soomaali. waxa looga baahan yahay wuxuu la mid noqonaya ardaygu markuu wato baasaboor Soomaali, wuxuu la mid yahay ardayga Rwandiiska ee wadanka u dhashay. marka waxaad ku dhiganaysaa wax lacagtu ardaygaas ku dhigto, isku mid baad ahaansan, isku xuquuq baad ahaansan. marka jaamacadu aad bay u jabeen sanadkii waxaad ku dhiganaysaa 400 ilaa 500 mar horena waa sheegay. jaamacadaha qaar ba ardaydu iyagoo environmental baranaya, disaster management, engineering, mechanical engineering, civil engineering, waxa iyagoo baranaya computer software engineering ayaa lacag yaro jaban ku dhiganaysaa. waxa laga yaabaa bishii in laga qaado $25 oo bish kaliya ama $20. ardayda qaar ba wax bixiyaan 30,000 oo lacagta Rwanda franc la yiraahdo. marka taas waa taa. jaamacadaha badankoodu jaamacada scholarship bixiya ma jiraan, badankoodu waa jaamacado la tago oo daily ardayda Soomaalidu wax kiraysta guryahaasay ku nool yihiin. marka waa sida halkaas waa halkii ardayda. iminkana waxaan u soo geli doonaa ganacsiga ayaynu u soo geli doonaa oo ganacsiga ayaynu ka hadli doonaa. haddaba halkan iyada waxaynu kaga hadli doonaa waanu ku soo gabagabeyn doonaa in uu qofku helo dee qof uu ku xiriiro. marka maalmahan dambe wax lagu soo kordhiyey jaamacadaha, markuu ardaygu imanayo waa inuu bixiyaa lacagta semesterkaas sii hordhiiba. horta semesterka waa inuu sii dhiibaa. markaa semesterkaasina waa 3 bilood. semesterku ayaa iska sii bixinaysaa. admissionkana waxaad ku helaysaa oo lagu helaa week gudaheed meelahaas admissionka ku helaysaa. admissionka marka qofka uu soo diray, markuu qofkaas admissionka kuu soo diro iyadoo PDF airportka ku soo dhaafaysa admissionka oo jaamacadaadana waad sheegaysaa, arday inaad tahayna waad sheegaysaa. waa inaad luuqadana garanaysaa marka lagu istaajiyo dee lagu weydiiyo waxaad wadanka ka rabto, waa inaad ka jawaabi kartaa wixii lagu weydiiyo. laakiin haddii aad garan weydo waxaad u socotay, waxaa dhici karta ama sida Soomaali badan ku dhacday, waxaa dhici karta in bartaa laga celiyo oo dee tigidhkii iyo wixii kaa soo qasaaraan. laakiin waa inaad marka horeba garanaysaa waxaad u socoto, waa inaad caddayn wadataa ka mid tahay waraaqdaas admissionka oo qof kuu soo diri karo, qof wadanka jooga. marka taas waa mid kalena waa inaad hotel booking wadataa. hoteelada habeenkii Rwanda ku yaala waxa la iskaga seexdaayo kale habeenkii $10 midaad helaysaa si fiican u seexanayso. waxaad helaysaa mid $20 oo si fiican u seexanayso. marka labadaas shay un baa lagaga baahan yahay, warqadaada inaad haysato. wax kale oo lagugu sii xidhxidhayaa ma jirto. wadankana qofkaa dee marba intaa kuu soo saaray ayaa ku kala tusaya. marka qofku wuxuu jecel yahay wadanka waa ka baran karaa. mechanic baad baran kartaa, civil engineering baad baran kartaa, mechanic engineering baad baran kartaa, solar baad baran kartaa, software engineering baad baran kartaa, political science baad baran kartaa, public health baad baran kartaa, international relations baad baran kartaa. waxaad jeceshahay baad baran kartaa. halkana waxaan idinka soo gudbin doonaa
waraaqa ay ku qoran yihiin lacagaha xilliga la bixiyo sa loo bixiyo. lacagta badankooda waa lacag Rwanda franca, marka lacagtana waxa yar qaaliya unta masterka taa yar qaaliya. marka ta masterku bishii meelaha $50 weeyaan. masterkuna waa 2 sanadood. 2 sanadood waa sanad aad wax dhiganaysa iyo sanad aad buugaaga iyo wax aad diyaarinayso waaba intaa. marka arday badan oo meelo badan lacag looga qaataa waa jirtaa oo Soomaaliyeed sida Nairobi iyo Kenya. arday Soomaaliyeed oo meelo badan lacag looga qaataa waa jirtaa sida Kenya, Kampala. Rwanda aad bay cheap u tahay, safe-na u tahay. marka waxaan ku dhiirigelin lahaa qofkii raba inuu Rwanda iska yimaado ama uu wax ka barto. contactigayaga ayaan muuqaalkan hoostiisa u dhiganaa. marka insha Allah gudoomiyaha ardayda Rwanda ayaa ku xidhaya qofkii halka contactiga aniga igala soo hadla. qofkaasi ayaa gudoomiyaha ardayda ayaa caawin doona oo wuxuu u baahan yahay ka caawin doona hadduu information rabo, hadduu rabo inuu yimaado admissionka loo soo saaro. qofku markuu wadanka galo wuxuu u baahan yahay in laga caawiyo processka fiisaha iyo salo xareysta fiisaha. inkastoo fiisaha uu yahay gebigiisu $15 sanadka dhana, $15 sanadka dhana, laakiin fiisaha businesska waa ka yar qaalisan yahay. fiisaha businesska qaybta businesskana waxaa iyadana ku sii daraya qofku markuu imanayo business u socdo waa inuu lacag yaroo fiican haystaayo, in yaroo 2,500 ilaa 3,000 lacag ah waa inuu akoon ku wataa oo yiraahdaa dee intaasaan wataa, indhayn baan wadaa, haddii dee wax iiga hagaagaan wadanka dee waxbaan ka furayaa, haddii kalena dee waan macasalaameynaya. marka qofku waa inuu wax wataa adoo fara maran oo aan waxba gacanta ku hayn. haddaad wadanka iska soo gasho way adkaanaysaa oo waa lagu wareysanayaa. dee ganacsi baad u socotaa, akoonkaaga bank statementka, warqadaha bank statementkaaga na tus. marka waxaan xogtaa in detail ugu siinayaa qofku dee inuu soo lugo amaha oo lugooyadu ma fiicna. qofku isagoo xog ka dheregsanoo xogta haya waa in uu wadanka yimaada oo wadanka waa inuu yimaadaa, waa inuu xogtaa galaa, xogtaa helaa. waxa doonto ayaad wadanka ka furi kartaa as long as aad raacayso sharciga. wax allo waxa doonto wadanka ka furi kartaa, waxa doonto aad keeni kartaa, soo export garan kartaa. aanay ka mid ahayn ku jirin waxyaabaha daraaga ama aan la ogolayn. wax ganacsi ah waad keeni kartaa, waxaad keeni kartaa badeecadaad soo dhoofsan kartaa. sharcigun baad raacaysaa. wax sharcigana visa waxa lagu siinayaa license ganacsi. boolisku markay ama qoladaas kula hadlaan cashuuru liisankaaga tusasa. cidi kuma dhibaso, cidi corruption lacag qaaliya kuma weydiinayso ama lacag nasi waxaan ku sameynanaay. waxaasi ma jirto. waa wadan la kala dambeeyo, waa wadan aad loo kala dambeeyo, wadan sharcigu shaqeeyo weeyaan. uma baahnid inaad qof laaluushtaba si aad wax u hesho. wax walba waa sharcigaad raacaysaa. wax kasta sharciga ka weyn. Soomaali badan meesha waa joogtaa, meheraday ku leeyihiin. caalamka dadka ka yimaada Soomaalidu iyaguna meheraday ku leeyihiin. qofku meeshu doono ka iman karaa, fiisuu doono wadan karaa. waa sida marka halkaas xogihii oo dhan baa ku dhan. wixii kale aad rabtaan commentiga nagu la wadaaga. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haddaba halkan iyada waxaanu kaga hadli doonaa Rwanda iyo ganacsigeeda. Rwanda waa wadan friendly xagga ganacsiga, waa wadan aad iyo aad looga ixtiraamo qofka ganacsadaha ah ama loo soo dhaweeyo. sababtoo ah wadanku wuxuu ku xidhan yahay ganacsiga, dadku maal gashadaan ama ay beeraha ay ka beertaan ama wixii uu sameeyo qofku isaga u taala. wixii uu ka beeranayo qofku isaga u taala, ganacsigu ka furanayo isaga u taala. company-ga haddaba company ahaan baad ganacsigaaga u registrationka waxaad u sameynaysaa company ahaan. markaad company ahaan registrationka u sameynayso 48 saacadood ayaa lagugu soo jawaabayaa oo lagu diiwaangelinayaa. ganacsiga waa la diiwaangeliyaa, waa inay dowladdu ku ogaataa. haddaad biyo gadaso waa inaad biyaha ku ogaataa. dowladdu 48 saacadood ayaa lagugu soo jawaabaya in ganacsigaagii la diiwaangeliyey uu Rwanda ka shaqeynayo, uu sharcigu maray,
waa 48 saacadood oo liisan baa la qaataa, waa inaad liisan qaataa ganacsi liisana. marka ganacsigu ama investmentigu uu furan yahay dadka aan wadanka u dhalan meesha doonaan ka yimaadaan. Soomaalidana aad baa looga soo dhaweeyaa, Soomaalidana waa jecel yihiin, way soo dhaweeyaan. wax hadaba waxayna lahayn musuq maasuq oo surface-ayna lahayn, wax musuq maasuq oo surface malaha. wax walba waa straight baad wax walba lagu qabanayaa. oo wadanka wadan aad iyo aad wax weeyaan looga shaqeeyay oo loogu talagalay in ganacsiga in ummadaha meelaha kale ka imanaya ay ganacsiga gashadaan wadanka. ganacsiga wadanka gashanayaan waxaa kamid oo kale inay ganacsiga inaad beer samaysato oo kale, inaad cafeteria furato oo kale, inaad hotel furato oo kale, inaad badeecad keento oo aad soo dhoofiso oo kale, inaad wadankii ama Soomaaliya wax ka dhoofiso oo Rwanda geyso. waa wax doontaad geyn kartaa, laakiin waa inaad sharciga raacdaa. midda kale ee wadanka ka jirtaana cashuurtiisa unbaa aad u yar sareysa mooyaane, waa wadan isagana sharciga aad looga raaco. wax musuq maasuq oo lagugu adeegaya ma jirto, caadi baad u shaqaysanaysaa. waa wadan open friendly weeyaan. marka imika waxaanu ka hadli doonaa waxyaabaha kale ee ganacsiga soo hoos gala. haddaba waxaanu ka hadli doonaa halka kaga hadli doonaa currency-ga ama bankinga wadanka lacagta laga isticmaalo. wadanka horta lacagta laga isticmaalo waa lacag la yiraahdo Rwanda franc, oo lacagta wadankaas la isticmaala. wadanka hadaa dollar wadato waxa lagaaga iibinaya dollar, macnaheedu waa inaad dollarka bedelataa, oo inaad dollarka bedelato oo meelaha lagu bedelayo forex-ta ama saddex shir oo kala ku taala inay ku bedesho. meelo badan oo lagu bedelaa jira. marka local bank waxa ku shaqeeya lacagta wadanka ka jirta oo la yiraahdo Rwanda franc. lacag waad dhigan kartaa, laakiin lacagta waxaad dhiganaysaa lacagtoodaas aad dhiganaysaa. marka lacagta dollarka soo sarifato ayaad dhiganaysaa. haddaba habka lacagta wadanka loo isticmaalo ama lacag dirida waxa labada wax la isticmaalaa systemka banking oo in isticmaasho Visa card-kaaga wax ku iibsato oo lacagtaada Rwanda franc u jaranay markaad wax iibsanayso, iyo inaad sidii lacagtii mobilka oo iyagu ay la yiraahdo Momo oo ay isticmaasho. Momadaas waa shirkadda wadanka ka shaqeysa oo kaararka laga furto, oo shirkad waxa weeyaan ku shaqeysa internetka sida shirkadaha Soomaaliya ka jira sida Hormuud oo kale, Telesom oo kale, Golis oo kale, saas oo kale weeyaan. dhatadaadana waa iska shubanaysaa. haddaba markaynu u soo galo waxyaabaha kale ee culture-ka Rwandisku, iyagu waa dad aad u ixtiraam badan oo dadka ixtiraama, oo laguguma soo xadgudbayo, laguguma cunsuradeynayo dharkan uu xiran yahay, laguguma cunsuradeynayo. wadankaas ka yimid waa wadan friendly. markay xagga timaado noocaad rabtaa direyska u xiran kartaa, direyski dhaqankii Soomaaliga aad xiran kartaa, waxa doontaa sameyn kartaa. waa wadan aad iyo aad open u ah oo dadka soo jiidasho leh, cidi kuma cunsuriyeenayso. waa wadan safe, wadan qurux badan weeyaan, xilligaas doontaa socon kartaa, wadan jawi degan weeyaan. marka waa sida wadanka intaas weeyaan. wadanka qofkii jecel inuu wadanka ka ogaado ama ka cabsi qaba. haddaba intaas waa inta imikana insha Allah waxaanu ka hadli doonaa horta dhanka family-ga waa ku noolaan karaa, waa degi karaa, ganacsi waa ka sameyn karaa. waa in family-gu wax haystaan, waa inaad ama ganacsi furato si Visa lagu siiyo iska joog maaha. waa inaad ganacsi samaysato. caruurtu wax waa ka baran karaan oo iskuulada ardayda kala dhigata wadanka u dhalatay geli karaan. waliba ardaydu waxay iskuulada ku bartaan English, French iyo luqadda wadanka laga hadlo. waaba faa'iido oo qofkii de luqado kala baranayo. luqaduna inaad barato waa skill. taasi waa taa nolosha Rwanda waa lagu noolaan karaa oo maaha nolol saaw adag. guryaheedu horta qaali maaha, marka meelaha qaar lala barbar dhigo saa qaali uma sii aha. wax laga yaabaa gurigeena lacag aan aad u sii qaalahayn oo 400 oo kun oo lacagtaas inaad ku hesho guri 6 maqsina 400 kun oo lacagta Rwanda franc waxay noqonaysaa meelaha 300 bay noqonaysaa bishii. waa family-ga taas family badan ilaa
ilaa 8 qof meelahaas family ah intaas waa ku filanta marka gurigaas waa guri aan goglanayn oo adaa goglanaya guri maran weeyaan guriyo qurqurux badan bay leeyihiin laakiin guriyaha ardayda oo kale 2 qol ilaa qol wax lagaaga kireynaya 2 qol wax lagaaga kireynaya 250 lacagta Rwanda franka 250 lacagta Rwanda franka waxna qoon kartaa $180 meelahaas noqonaysa qiyaas ahaantii qol oo kale waad heli kartaa meelo jaban baa jira oo xaafaduhu isku mid maahay xaafado jaban baa jira marka aad iyo aad baa ay nolosheedu u fiican tahay sababtoo ah dadku waxay cunaan waxa ka soo go'a beeraha wax la soo dhoofiyo lama cuno aan ka ahayn bariiska iyo baastada iyo daqiiqda khudradii wadanka ka soo baxda baradhadii basashii afakaadhadii canabkii xabxabkii wuxuu wadanka ka soo baxan wadanku wadan rooban wadan laga faa'iideysan karo weeyaan marka qofkii jecel isagu inuu wax ka ogaado lambarkayaga ayaan halka ku qoranaa lambarkayagaas aad nagala soo xiriiraysaa waka adoo waliba arday ayaa hadaa doonto ganacsan kartaa cid kuma diido